mar aniga safar baan ahaa mar diyaarad Mareykankan magaalo ila magaalo kursiyaas saa u fadhiyay kursiga igu xiga waxa fadhida naag oo aan malaynay inay waxay ahayd dhulalkan Aasiyada ahayd meel Hindi waxay muslim ma ahayn laakiin mid Mareykan oo gaal oo cad ah geeska xagga dariishada xiga quraanka wardiga iska bilowday wardiga iska akhrisanay quraankayga yani hoos baan u akhristay cidna kuma dhibin cidna kii dariishada fadhiyay ee xagu shishay gaalki agta ka shishay ani ma badalinsani waxaan arkay ninkiyo dhagaa cunayaano saas uu leeyahay boodaya waa kacaya oo fariisan mar dambe bay naagti waxay ugu leedahay inta igu jisay ugu tiri maxaad samaynaysaa maxaa kaasaan quraan bana qatare كلام الله كلام ربي كسيتر نينكا سو ما aragtay ninka waarka waxun baa cunayo boodaya oo kacaya waxay tir waa arintaada adiga wado please stop شوي kan jooj waxana adiga miyaad maqlaysa miyaa kugu dhibaya ma yitiri laakiin isaga waa dhibtaysan yahay dhibahay wax ku kacay ma garanayo wax yaraan joojiyay ninka waa iska fariistay waa dagay quraanka markuu noqdo waa socon soo dhan baa isla kacay dhagaha ka bood halka markaan ka baqayba inuu mid kale aniga ila ma hadli karo waa wax la yaab leh aniga ila ma hadli iyadu soo diray u leeyahay iga amushanik subhanallah al-malik al-ala فالقرآن سلاح عظيم إلهي وحو النسي وحو نقم كراء جنين والله الذي لا إله إلا هو هل حرف وكلام الله أي كحق بدن قنابل ذرية بمبا تومك ميلا وكحق بدن لكن آوي دتكي باليقين أي قلبي وضع رتها سوق شوف آو فالله يوفقنا وإياكم الله نوافجي وحن كودي ولا الليال الإيمان والعمل الصالح عن كل ذلك أعمال الصالحة قريقة يريرها هذا الأولى كان أنت بدن يعني هي سوق قرين وين واسكور هنا مكت لول كان انت بدن هدا waxa la sheega usarka iyo reeraha iyo aad ay isu dagaalaan Soomaa dhibaato weyn ka jirta aniga marar badan baa markaan soo maray bari baan meel soo maray aan Mareykanka oo saajid markaan inaan xamar isku naqinay hayr alxamdulillah horta waa inaan ku helay maanta waa fiican tahay gurigii waa la iga soo eriyay buu islaantii ay soo eriday waxaan rabaa gurigeena adigu celiso cid kale oo iga diiday dadka masaajidka jooga dhow kadib laakiin adiga maadaama safar ka timid bal islaantii igu celi gurigii igeeb buu yiri marka gurigii baan ninkii isu raacnay islaantii hadii cabaar baan baryeynay oo la hadlay oo anigu la hadlay waxaan bal madaxayga maadaama halka ka imido aan inta safar soo galay bal ninka la iska aqbal waa la iska aqbalay markii dambe adiga ala kulli xaal waxaan u malay sheekaan idinkeeda ku cusbeen waay وآذات أولى سعوتان الرماس لكن إيش السبب؟ أرتا سبب ظاهر وجرا سبب باطن وجرا السبب الباطن وعدم ذكر الله في البيوت قريه بذكر الله كبحي ذكر إلهي حسد إلهي ملائكتي سود الجساء قريه راح نحرس بسوقشا شياطين تئي بلايد وضسعتان إبليس وجعل هي إنه ضدك رج نيجي راكت إسكدرو حديث بقيمة عرشيgiisa badda ku dhaxyaala markay u yimaadaan askartiisu oo mid walbaba wuxuu soo qabtay u sheego xamaada qabanina naga tag buu ilaa hebel waan ku dadaalay ilaa usineystay naga tag buu xamaad qaban khamru ab laakiin markuu yeeraa ma ziltu inaan ku dadaalo ilaa aan isagii xaaskiisii kala geeyay oo furay kaasu soo duma baa leeyo qabtaa uu ilaa anta adiga wanaagsan alla ilaaha wax wanaagsan qabtay kaasu ilaa baa leeyo لأن أسرة بربرتي dhibka ka imanaya iyo diin xumada meesha ka dhalanaysa yaarurta say u baabayaan baa uu ogyahay ilaa isagu muhiimadiisu waxa weeye dadkoo dhan inay jahannama galaan buu jecel yahay isagu soo ma garan marka junuudiisi iyo abaalista uu soo dirayo waxa kaliya guriga ka saari kara dhikrullah gurihi dhikriga ilaahay waa ka qadanay xalaqaad ku sameeyeen reerka intaan soo wada dunno oo sukeeno oo quraan wada akhrisano ama xadiiska nabiga aan akhrisano وقت عتذا ولا شيء وقت عبدتانك ولا شيء وقت كذا ولا شيء على بدن شنو بدن وحلا داوني وقت ولا شيء لكن ذكر الله وقت لما شيء حسك الله وقت لما شيء حديث النبي الله آخر وقت لما شيء ملائكتي يقولي لو ما يرن
balaayadii kalena waa ku jirtaa. kaas waa sabab baatinaan anu oran karaa. aan ka dadaalno gurigaaga waa inaynan ka maqnaanin fi kulli yawm xalaqa laysu soo ururayo. ma aha sheekh hebel iyo sheekh Cabdirashiid iyo sheekh fulaan aan inta ka fiirsana oo dhaladan ka muuqdo oo wax ka akhrina ma aha. adiga iyo reerku wada fariista iyo ciyaalka kulli waqti samaysta aad ilaahay xusaysaan, quraanka akhrisanaysaan, axaadiista nabiga aad akhrisanaysaan. maca muruur al-ayaam wax weyn aad dareemaysaa gurigaan iska bedelay, wax weyn baa iska bedelay. soo ma garan wax caafimaad weyn wey. ka waa sabab daahir. السبب الباطن هدي يدو وبلا شك دول كان اعتمادين وحي بريين ركن من أركان الأسرة وليلها قوامة الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. تيبا ماشا كبحضي تيبا ماشا كبحضي وأنا كنت ذلك ولو إن كان كل شيء بدأ عرشقيس وكسميسية وإسليه ولا لواي وأوضى شخصتها. marka in usarka la burburiyo faa'iido weyn ugu jirta ayada. soo ma garan sababtay ku burburi lahayn baa la sameeyay. hadaa idinka sheekeyn ma idinka aad iga baan u maleynaya, laakiin ahdaafta iyo waxyaalaha aan arkay lama koobi karo. taas naftarkeeda sidaan ugu hortagi lahayn iyo sidaan ku dadaali lahayn. laakiin waxa asaas u ah xalaqat al-iimaan ka guriga laga sameeyaa asaas u ah. qofku hadduu iimaan helo reerku iimaan yeesho iimaankoodu kobco malaa'igtu guriga soo gasho khayraadka gurigaan ku dadaalno ilmahaasi waa hagaagayaan insha Allah. usradaasi way wanaagsanaanaysaa, daacada ilaahay baa badanaysa, shayaadiinta meesha ka baxaysa. khayrka Allahna waafajiyo. mashaayikhdu waxay u dhaheen muxaadarada cinwaankeeda anigana runta idin sheegay aniga muxaadaraad iyo canaawiin ma baqaan waa iska soo fariistaa wixii ilaahay qalbiga ku soo rido وأن إلهي كرجينا إنه ما أنا يقوى أنفعه ضدك دقيسني يكون أنفعان إستشك شيء مركب الإيمان والأخلاق. أنت أنكسر يا هذا هديني هذا وإيمان ثمار الإيمان نتائج الإيمان. إيمانك هي عملك صالحة مروليه مليه سيمان ما هي سنو مليه سوحا رأسك أخلاق ده ونكسن أخلاق ده ونكسن أخلاق waxay ka dhashaan al-iimaan. qofku markuu mu'min yahay oo rabbiga uu ku xiran yahay hadii dadka wuxuu ula tacaamulayaa tacaamulka iyo dadka ikhtilaafka uu la sameeyo waxa asaas u ah cabsi uu ilaahay ka cabsanayo aakhira uu rumaysan yahay. marka tanaasul badan buu la imanaya, xuquuq badan oo xaqiisa soo raacsan lillahi ilaahay dartiisa buu isaga dhaafaya. nabiga alayhi salaatu wasalaam akhlaaqda in yar buu noogu soo koobay. horta dadku xuquuq baa leeyahay hadii la wada joogo adiga nin aydan waligiin is arkin shaqo isku maleeyay nin is garanaynin waxba idin kama dhaxayo wadadaas isku agmaraysaan waa isaag marteen hadii isu badatood muslimiintiin salaamu calaykum istiraahin nawaa istiraahin hadii dadka sida dadkana waa nin walba gees ku gabaraya shaqo isku maleeyay sooma. laakiin goorma dadku isgalaan oo dhibaatadu ay timaadaan waa markii tacaamul ka dhex dhaco ama meel la isugu yimaado ama ma aragtay xuquuq dhexdooda marto ama ay wax isu yihiin ama meel isugu imanayaan ama xataa masaajid isugu imanayaan ama waxbarasho isugu imanayaan ama shaqo isugu iman halkaas tacaamul ka dhaca. nabigu waa noo soo koobay waxay dhaheen seen dadka ula tacaamulnaa oo ilaahay kaga badbaadnaa. wuxuu yiri tu'adduun alladhi alaykum wa tas'aluuna Allah alladhi lakum. waa qaacida dahabiya hadaad qaadato waa liibaanaysa. waa maxay muslim kaste xaq buu kugu leeyahay adiguna xaq baad ku leedahay. misaal haddaan kuu soo galo adoo fadhiya xaqaagu adigu leedahay waa maxay inaan ku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku idhaa. أنا حق أن أقول له ورد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأبسط شيء أجر كيدون وابدين. طيب لنفترض وان سوق علي وكسبان سلام تاريخ حاجتي يقوم سلام. طيب حقي أقول هيد وكتجي ما حضرنا إنسان كان إما سلام وبناء عليها نقول سلام ما حلقة ربا أدعو إلى تلاهي أنا أدعو وحي اللي يقولها وان جيسنه أدو مركا سلام السلام عليكم لي. تؤدون الذي عليكم تسألون الله الذي لكم وكو حمي أدو وناج
وكجوي هذا حريري dhibka uu ka shaqeeyay neeftiisa ka shaqeey hadalkaasi in lagu hadlo anna way sahlan tahay inaad maqashaan idinkan way idin sahlan tahay laakiin inaan anigu ku dhaqmo idinka ma inaan anigu ku hadlo aad bay u fududta laakiin inaan ku dhaqmo oo qofaan arkay inuu dhibay ama dhib ii geystay inaan anigu dheef la tago ama i gooyi anigu aan xiriiriyo ama hadal xin ugu yiri hadal wanaagsan inaan ugu jawaabo أدبي وذكت ولذلك إلهي وحكوت المامي الرنتاس وما يلقاها لا لمكل مي ولا مسي إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم آيات اسمحي كوقتنتا قفك حماتك ولي ما ده ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ومن الله حماته ليمن هذا وانا ugu jawaabto ilaahay baa dhaxdeena maxabba iyo kalgacayl iyo walaalnimo dhigaya walaalnimo ilaahay dhaxdeena dhigaya